waxaa macquul inaad maqashay wax la yiraahdo web 3 ama web 3.0 ama blockchain. web 3.0 waa internetka cusub ee caalamka farakulul kula wareegi doona. waa maxay web 3.0? dabcan internet waa isticmaashaa oo waxa hadda kuu sahlay inaad halkan iga daawad, balse internetka wuxuu soo kala maray steebyo kala duwan ayuu soo maray ama xiliyo kala duwan ayuu internetku soo maray. inta aan idin sheegin wax la yiraahdo web 3.0 wax laga wado iyo blockchain, marka ugu horeysa waxaa muhiim ah inaan dib ugu laabano internetka meesha uu ka soo bilowday. 1994 waxaa soo bilowday web 1.0. web 1.0 waa internetka ugu horeeyay ee caalamka la isticmaalo. web 1.0 gaas wuxuu ahaa kaliya meel internet wax laga akhrisan karo. waan hubaa haddii aad xasuus leedahay waxaa jirtay bari internetka inta la tago meelaha internet keefyada MSN inta la galo internetkaas laga geli jiray. xilligaas MSN-ka la galayay waa xilligan la isticmaalayay web 1.0. web 1.0 marka internetkaas wuxuu ahaa kaliya internet wax lagu soo qoro, adigana aad tahay akhrisaday oo kaliya wax baad akhrisan kartaa, balse lama falgeli kartid. 2000 ilaa 2005 xilliyadaas waxaa soo kordhay internetka la yiraahdo web 2.0. xilligan waxaa sahlanaatay in la sameeyo social media iyo shirkado waaweyn iyo caalamka internetka oo ah hab ay dadka ku wada falgeli karaan oo ay ku wada xiriiri karaan. taasna waxaa ka sahashay heerka uu gaaray teknoolajiyadda sida HTML-ka, JavaScript-ka, CSS-ka. sababtoo website-daas oo dhan wax lagu dhisaayo waa saddexdaas aan idin sheegay. web 2.0 markii uu bilaabmay waxaa sahlanaatay shirkadahan inay bilaabmaan sida YouTube, Facebook iyo wixii la mid ah. waa kan ilaa ay hadda aan isticmaalno, waana mid waxna aad akhrisan kartid, waxna aad qori kartid, dadna aad la falgeli kartid, halkii kii koobaad uu ahaa kaliya inaad wax akhrisan kartid. marka internetka hadda aan isticmaalno ah web 2.0 cilado badan ayuu leeyahay. sidoo kale waa mid daatada ama macluumaadka internetka uu yahay mid centralized ah oo meelo gooni ah iyo shirkado gooni ah ay hayaan oo ay kaydinayaan. macluumaadkaaga wuxuu faraha ugu jiraa shirkado gooni ah, ayaga ayaana kaydiyo, waxa ay rabaan ayay ka samaystaan. weli ma kugu dhacday adigoo internetka ku jira ama Google-ka wax ka baarayo wixii aad baartay hadaaye dhowr saacadood kadib markii aad Facebook aad gashid, TikTok hadda aad gashid, YouTube aad gashid, waxyaabihii aad ka baaraysay internetka xayisiintooda weli ma lagu tusay oo ma yaabtay oo mis dhahday waxaan hadaaya internetka ka baaraysay sidee ku ogaan karaan waxa aan baarayay ama aan rabo sidee xayisiintaan la ii tusayo. dabcan waa wax la yiraahdo cookies-ka ama daatada wax aad baaraysid waxa lagu kaydinayaa cookies, kadibna daatadaas waxaa laga iibinayaa shirkadaha wax xayisiinaya sida YouTube, Facebook iyo wax la mid ah si qofka macmiilka ah loo tuso wixii uu raadinayay oo xayisiin ah. dabcan dhaqaalaha ugu badan waxa ay ka sameeyaan shirkadahan waa xayisiinta. cilada koobaad ee web 2.0 horta waa midaas oo ah in macluumaadkaaga oo meel gooni ah ama dad gooni ah ay haystaan, adigana aadan wax awood u lahayn waxna aadan ka bedeli karin. si la mid ah waa mid macluumaadkaaga si sahlan lagu jabsan karo oo in la haagareeyo aad ay u fududahay. ciladahaas iyo cilado kale badan buu leeyahay. marka haddii aad isweydiinaysid ciladahaas sidee looga bixi karaa ama sidee looga kori karaa, xalka muxuu yahay? dabcan xalka wuxuu yahay web 3.0. web 3.0 waa internetka cusub ee caalamka. web 3.0 gan wuxuu isticmaalaa AI iyo machine learning iyo blockchain. AI iyo machine learning-ka waa systemyo loo training garay ama loo tababaray habka maskaxda bini'aadanka oo kale oo kula macaamilaya sida bini'aadan oo kale. sidoo kale blockchain asagana waa technology casri ah oo ka saacidayo web 3.0 gan in macluumaadkiisa iyo daatadiisa uu kaydiyo. waxyaabaha uu leeyahay marka web 3.0 ga maxaa kamid ah? waxaa kamid ah wax la yiraahdo decentralization oo ah in daatadaadi ama macluumaadkaaga meelo kala duwan, saafar kala duwan la kala dhigayo isla xilligaas ayada ah ee aad internetka ku jirtidba. taasna waxay adkeynaysaa in la jabsado macluumaadkaaga. sidoo kale mid kale uu leeyahay web 3.0 ga waxay tahay uma baahnid fasax inaad weydiisatid haddii aad rabtid inaad internetka wax ka baartid ama haddii aad website aad isticmaasho aad rabtid. sida caadiga hadda tan haddii website aan galo wuxuu ku leeyahay cookies-kan accept gare markuu ku leeyahay. sidoo kale shuruucda kambanigaas u degsan waa inaad haddana sidoo kale aad raacdid. sidoo kale waxaa kaloo siinaysaa macluumaadkaaga ayaad siinaysaa oo ah magacaagii, lambarkaagii iyo wax walba oo macluumaadkaada ku saabsan ayaad u gudbinaysaa. macluumaad la'aan adoon gudbinina ma isticmaali kartid adeegaas. halkan web 3.0 ga waxaas oo dhan meesha ayuu ka saarayaa. marka wuxuuna sameynayaa inaadan wax codsi aad weydiisanin markii aad isticmaalaysid internetka. sidoo kale inaadan wax macluumaadkaaga aadan gudbininba. macluumaadkaaga adiga unbaa xukumo, adiga unbaa maamulanaya. halkii kii hore 2.0 ga lagu maamulayay macluumaadkaaga oo cidka iska keedsanaysay oo sidoo rabta ay ka sameysanaysay, kan adiga ayaa iska leh macluumaadkaaga, adiga ayaana xaq u leh, adiga ayaana haysto oo maamulaya. marka saan sheegnayna wuxuu isticmaalaa artificial intelligence iyo machine learning oo ah systemyo loo training garay ama loo tababaray habka sida maskaxda bini'aadanka oo kale oo kula dhaqmaya sida bini'aadanka oo kale. meel walba aad joogto caalamka waad isticmaali kartaa oo wax xuduuda ma leh. sidoo kale ma jirto cid gooni ah ee maamusho. halka 2.0 shirkado gooni ah ay maamulaan macluumaadka internetka. halkan waa free, waana open source, wax maamulana ma leh.
cid gooni u lehna male qof walba asaga ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay xoolihiisa dabcan awoodda halkan waxaa kula wareegay shacabka waxyaabaha ka dhaxeeya marka web 3.0 iyo blockchain waxay tahay horta web 3.0 waxaa lagu dhex isticmaalayaa blockchain oo blockchain ayaa sahlaysa in daatadii ama macluumaadkii ay kaydiso qodobka koowaad waa sidaas qodobka kale waxay sameynaysaa in shirkadaha hadda jiro oo dhan in hadhowday u soo wareegayaan waxa la yiraahdo web 3.0 dabcan internetka markuu u soo wareegayo web 3.0 shirkad walbo ama website walbo ama wax walbo oo u baahan inay ku soo biiraan waxa la yiraahdo web 3.0 ga waxa loo sameeyaa waxa la yiraahdo smart contract marka blockchain-ka wuxuu ka caawinayaa in smart contracts uu siiyo website-yada ama shirkadaha wax walbo oo raba inay ku soo biiraan meeshaas sidoo kalena midka saddexaadna wuxuu yahay decentralization inuu leeyahay oo ah in macluumaadka internetka meelo kala duwan lagu kala kaydinayo oo aan hal meel la gelinaynin si hadhowday ay u adkaato in wax la hagareeyo ama wax la haleeyo faa'iidada ugu horeysa waxay tahay in macluumaadkaaga adiga aad iska leedahay adigana aad haysanaysid oo cid kale aysan ku isticmaali doonin midka labaad waxay tahay security-ga daatada ku jirta blockchain-ka waa encrypted ama way encrypt gareysan tahay cid saddexaadna ma arki karto sidoo kale cid idin dhaxaysa ma jirto adiga iyo waxa aad la macaamilaysid oo shuruuc idin dhaxaysa ma jirto oo ka xadidaysa wax sidoo kalena shirkad idin dhaxaysa ma jirto haddii aad rabtid inaad wax access gareysid ama adeeg aad rabtid inaad isticmaashid third party-ga oo dhan halkaas uu ka baxaya waxa isla xiriiraya waa adiga iyo cid danta idin ka dhaxaysay marka security-ga aad ayuu u adag yahay maadaama daatada ay encrypt gareysan tahay sidoo kalena decentralized ay tahay oo macluumaadka uu meelo kala duwan kala yaalo oo aan hal meel kali ah loogu dhaceynin wixii ayaga ahaa ama macluumaadkaagi decentralization kaas ogeys security waa very high in wax la hagareeyo aad ayuu adag tahay sidoo kalena ma jiro third party ama cid idin dhaxayso taasna waxay sare u qaadaysaa kalsoonida aad ku qabtid markii aad internetka wax ka isticmaalaysid oo cid idin dhaxaysa ma jirto oo hadhow is dhilahayd cidda idin dhaxaysa ama wax halaysa ama ku kalsoonaan kartaa marka wax idin dhaxay ma jiraan si toos ah la macaamilaysaa cidda aad adeega ka rabtid sidoo kalena inaad fasax aad weydiisatid cidda aad wax ka adeega aad ka samaysanaysid ama meesha aad wax ka baaraysid ama website-ka aad ka baaraysid inaad fasax aad weydiisatid ayadana uma baahnid taasna waa faa'iido kale oo macluumaadkaagana uma gudbinaysid ciddaan fasaxna ma weydiisanaysid wixii aad rabtay ayaad si nabadgelyo ah ayaad ku isticmaalaysaa